بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الرحمن وحمانت وحير إسلا فيرونينا qaabka ilmaheena aan u jeclaysiin karno wax akhriska. Dabcan ilmaha iyo anagaba waxa u baahanahay inaan wax akhrino si aan wax badan u faa'iidno oo wax badan u barano. Marka ilmaha waxa qaabka ugu fudud oo ugu maarti wanaagsan oo wax akhriska loo jeclaysiin karo waxa waaye markuu ugu horeysa ilmaha inuu haysto qudwo, inuu haysto waalid wax akhrinaya. Markuu ilmaha arko waalidka wax akhrinaya isagana wuu jeclaanaya wax akhriskii. marka ilmahaaga buug inta la soo ag fadhiisatid aadheed kaala adigana hooyo akhri ama aaba akhri uu akhrinaya. laakiin ilmihii marka ku dhado wax akhrisku faa'iido leeyahay waa inaa wax akhrido oo uusan weligiis ku arkin adoo wax akhrinaya way adag tahay in uu wax akhriyo. ilmaha waalidku quduu u yahay, waalidka siduu u dhaqmaa isagu ku dayanaya. masterka ugu horeeyo uu wax ka qaadanayo wax ka baranayo waa waalidka. hadduuna waalidka qudwo wanaagsan ku arkina dabcan kaama yeelayo wax akhriska uu wanaagsan yahay adigoo aan wax akhrinaynin. taani shay waxa waa ilmaha in uu helo maktabad guriga ku taala. haddii uu helayo maktabad isaga khaas u ah, shelfis yar loo sameeyo oo isaga buugta khaaska uu akhrinayo uu helayana way kasii fiican tahay. haddii gurigii maktabad taalana way fiican tahay oo ilmihii maktabadii uu la qabsanayaa, mataqaanaa uu soo qaadayaa buuggii uu akhrinayaa. lambar 3 waxa waaye ilmaha in loo sameeyo waqti uu wax akhriyo. waqtiga nus saac ha ahaado, hal saac ha ahaado, yacni waqti uu wax akhriyo. ilmahana markuu ugu horeyso wax akhriska lagu bilaabay waa inaan lagu badin. 1 page akhri, maalin dambe 2 page akhri, 3 page akhri, ilaa ilmaha uu gaaro heer uu maaragtay aad dareentid inuu wax akhriskii la adabti gareeyay oo markaas aad ka codsan kartid inuu kordhiyo oo intuu akhrin jiray ka badan akhriyo. waxaa muhiim ah ilmaha markuu wax akhrinayo waalidka inuu ag joogo oo la fadhiyo oo isagana wax akhrinayo. ka war haddaa ilmahaaga maanta dhan ku haysid kaale maxaa la dhahay quraanka ku dilaysid akhrinaysid, wuxuu dareemayaa waxaas inuu yahay wuxuu isaga ku khasban yahay laakiin ladda kama helayo. laakiin markaa dhahaysid soo fariiso kaale quraanka isla akhrine kaalaya waxa akhrinayna jalsa quraaniya sameynayna, sidaas oo kale ilmihi mutcu ka helaya uu akhrinaya. sidaas oo kale waxa loo baahay inaan jalsa qiraa'a sameyno oo ilmihii nala fadhiya aan maaragtay wax akhrino oo jeclaysiino qiraa'adii. ilmaha maxay tahay inaa kaloo asameysid buug waa inaa u hadiyeysid, yacni kitaab waa inaa u hadiyeysid. anaga markaa Soomaaliya joogno oo kale buugteena ama Soomaaliya oo dhan buugteena Soomaaliga ku qoran way yar tahay oo ilmaha mataqaanaa sinigiisa munaasibka ku noqon karta. marka ilmaha wax uu akhrin karo, caqligiisiina uu maaragtay la qabsan karo oo mataqaanaa uu fahmi karo waa inaa u raadisid buug saas ah. ilmaha waa inaa mataqaanaa waqti siisid ugaga jawaabtid su-aalaha uu ku weydiinayo. waa inaa weydiisid maxaa ka faa'iiday wixii aa akhriday oo anaa la socotid, la munaaqashayn kartid, yacni buuggiisi la socotid. hooyo maxaa akhriday, maxaa kugu adkaaday, halkaa i weydii. waxaa kaloo aada muhiim u ah ilmaha in lagu bilaabo luuqadiisa hooyo inuu wax ku akhriyo. ilmaha af Soomaaliga in lagu bilaabo inuu maaragtay buug Soomaaliya loo soo iibiyo ama buugta kuu taalo guriga oo munaasibka ku ah uu fahmi karo oo mataqaanaa inaa u dhiibtid oo dhahdid buuggan akhri. waa kuu qaabeeyey buugga ugu horeeya intasaa ku dhammeynaysaa. laa maanic ilmaha markii uu mataqaanaa wax akhriska dhameeyo inaa maaragtay hadiyad yar siisid. laakiin markasta ilmaha waxa danta ugu jirto ma ahan in la tacawudiyo oo lala qabsiiyo inuu hadiyad ku qaato oo ilmaha markasta wuxuu akhrinaya marka aa wax ku heshid. laakiin dhiirigelin si ah oo kaleeto inaa kitaabo kale usoo gedid, inaa wuxuu jecel yahay u samaysid, inaa mataqaanaa aad dhahdid oo waa markaa buuggi waa dhamaysay maanta waxa kuu kaxeynayaa yacni ciyaar oo kale meel uu jecel yahay. marka sidaas oo kaleeto baa mataqaanaa ilmaha wax akhriska lagu jeclaysiin karaa. aham shayna waa qudwa. waalid aan wax akhrin ilmaha wax akhris inuu maaragtay keligiis akhriyo way adag tahay. insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.